السلام عليكم أصحاب سوريا. عاو حديث سوق الدنيا مقال كوبان أو كسبسن عشرة ديني CSS كا عم فيها وعشر كنيس دحاد عشر كنيس دحاد وكسبسن عندنا حلو يقانو CSS background أما سلا سمايو background كا سيلوجو بدلو CSS CSS background مركز لقى هالليو وحيلا ده property أفربضان وحفلة ده property value selector يوحى هرب إنه سوق عدني مركز وفهمنا مركز terminology-ga CSS-ka iyo waxyaabaha marka la joogo inta hore ayaan kusoo sheegnay marka waa inaad fahmi kartaa oo aad casharadii hore soo akhridaa ama soo daawataa marka property kala duwan bay leedahay property-da kala duwan waxaa kamid ah mid la yiraahdo background color background image background repeat background attachment background position shanta property bay leedahay intaan horta property-da u gudbin horta CSS background aan eegno wuxuu yahay CSS background property is used waxa loo isticmaalaa property-ga la yiraahdo background waxa loo isticmaalaa in lagu qeexo background-ka effects on element kaasoo saameynaya elementiga background-kiisa dambe wax saameynaya ayaa loo isticmaalaa there are 5 background properties waxaa jira 5 property ama 5 background CSS property that affect in HTML element kaasoo macnaha saameynaya ama wax ka bedelaya HTML elements-ka aynu sameynay waxaan filayaa inaan keywords-ka aan isla fahmano ama waxyaabaha element HTML property background waxaas hore baynu soo sheegnay marka eray bixin rasmi ah oo af Soomaaliga lagu yiraahdo ma jirto laakiinse waxaan filayaa in sideeda isula fahmano maadaama aan hore soo sharaxnay mid walba wuxuu taagan yahay iyo wuxuu qabto property-ga koowaad waa background color sida hadii magaciisa ka muuqataba waa inaad color-ka ka bedeshid background isu jirto specify background color of element waa inaad element-ga ka bedeshid background-ka adoo isticmaalaya color names ama isticmaalaya hex value sidaynu color isku soo qaadan ama isticmaalaya RGB color RGBA HSLA waxyaabahaas oo dhan aad isticmaalay inaad background color ka bedeshid ka ku xiga waxa weeye image inaad background ka dhigtid kanoo kale repeat background repeat waayo background haduu yar yahay tusaale ahaan xagan kugu sheegaya the background image property repeats wuu soo noqdaa the background image horizontally and vertically mar wuxuu soo noqdaa si balaca marna si taaga buu soo noqdaa markuu image-ku yar yahay weey tan waxa la isticmaalaa kaliya marka image-ka aad background-ka aad image ka dhigaysid bad repeat isticmaali kartaa laakiin hadduu color yahay ma isticmaali kartid some images are repeated sawirada qaar way soo noqdaan only horizontal or vertical horizontal ama vertical tax ama joog chief ama joog bay u soo noqdaan marka taas adoo ka duulay bad no repeat dhihi kartaa ama repeat x dhihi kartaa repeat y dhihi kartaa waxyaabahaas oo dhan waxaan ku arki doonaa xagga practical-ka waxaa jira background attachment waxaa jira background position waxyaabahaas oo dhan baa jira aan mid walba gaarkiisa dul taagno horta aan marka hore sublime text-kayga soo kiciyo first waxaan soo furanayaa file cusub kabacdi waxaan leeyahay save kabacdi waxaan ku save garanayaa halkaa waxaan u bixinayaa test.html save baan leeyahay waxaan ku qoranayaa html code-kayga okay sidoo kale waxaan samaysanayaa file kale oo CSS ah waan save garanayaa waxaan u bixinayaa style.css extension-ka CSS baan ka dhiganaa kii horena HTML baan ka dhiganaa waa in labada page mid walba extension-kiisa u wataa kan haddaynu ku noqono aan halkan tago oo aan isku xidho si la isugu xidhayo hore baynu soo baranay linki baad leedahay dabeetana halkaas aad gelinaysaa style.css waxaan inaynu isku xidhkayo waxyaabahaas oo dhan hore baynu soo qaadanay marka had yarto macnaha waxba ku noqon mayno kabacdi waxaan qaadanayaa selector-ka buriga waxaan rabaa buriga oo dhan inaan background-ka ka bedelo halkan aan tagayaa waa selector burigaas
halkan aan saa ugu paste odhanayaa kabacdi waxaan furayaa bracket kolkaa waxaan dhahayaa background maxaa ugu horreeyay property-yadeena waxaa ugu horreeyay background color bal markuu horeysa isticmaalna bisa loo isticmaalay arkana mid walba gaarkiisa isugu taagana background color marka waxaan siin karaa intan waa selector intanina waa property halkan maxaa gelaya value baa gelaya value-ga waxaad ka dhigi kartaa qoraal caadi ama magac color name baa isticmaali kartaa sida green oo kale control s baan dhahayaa waa save gareynayaa kana waan save gareynayaa dabeetana right click baan dhahayaa open in browser baan dhahayaa browserka kusoo kacayaa bal inuu aragno soo ma aragtid bodigii intaasaa la dhahaa intaasoo dhan muxuu ka dhigay green buu ka dhigay marka hore white buu ahaa sidoo kale waad ka bedeli kartaa waxaad dhihi kartaa waxaad ka dhigtaa blue oo kale save garee control s dheh browserka tag refresh dheh u bedeli soo ma aragtid color marka background colorka saas aad u isticmaali kartaa halkan oo kale color name kaliya ma isticmaali karto waxaad isticmaali kartaa hex value-ga hore ayaynu soo dhignay baan filayaa marka haddeer waxba sharixi maayo haddii aadan fadlan hex value-ga waxba ka haddeer aysan kaaga bilaabnayn ama aadan horey u arag ku noqo cashirka ka horreeyay si aad u fahantid wakaa colorka hex value waa isbedeli kartaa waxaad isticmaali kartaa RGB waxyaaba dhan waa isticmaali kartaa sidii aynu kusoo baranay CSS colors oo kale waxaynu kusoo baranay oo kale haddaan kan iska tuuro oo aan ku noqdo halkan kay wixiga property-ga wixii waa background image waa inaan background-kayga sawir soo geliyo meesha hadda color-ka soo gelinayo tusaale ahaan halkan oo kale ayaan tagay waxaan dhahayaa background image laba colon ama colon kabacdi waxaan odhanayaa URL markaan dhaho labada bracket baan furayaa kabacdi waxaan dhahayaa double quotation ma furayaa xirayaa halkan waxaan gelinayaa marka ugu horeysa horta waa inaad soo qaadataa image baad soo qaadanaysaa kabacdi waxaad tegaysaa folderka aad ku save garaysatay faylashaada labadaada file ka HTML-ka ah iyo ka CSS-ka ah labadan file kan iyo kan labadan page meel baan ku save garaynay soo ma labadan meelood labada page meeshan ku save garaynay baa waxa soo dhex dhiganaysaa sawirkaad u baahan tahay inaad background ka dhigtid tusaale ahaan aniga haddeerto desktop-ka ayuu ii yaalaa desktop-ka folderkaas ayaa ii yaala la dhaho Lancome waan kusii dhufanayaa halkaas CSS ku qoran tahay ayaa waxaa ii yaala file-kan oo ah filekaas oo ah test ku qorantay waa ka HTML-ka iyo kan style ku qorantay oo ka CSS-ka background-kaygina waa kan image-kayga marka bartaas uu yaala marka halka aad ku save garaysay page-ka HTML-ka iyo page-ka CSS-ka waana soo dhigtaa sawirka background-ka dhigtay waana isku meel dhigtaa hal folder waa inay ku wada yaalaan inta markaad samaysid xaggan aad imaanaysaa CSS-ka kabacdi halkan aad ku qoraysaa magaca image-ka tusaale ahaan aniga image-kayga aan rabo inaan background ahaan u isticmaalo waxaa la dhahaa background u kaa kabacdi right click baa dhahaysaa property baa dhahaysaa waxaad eegaysaa extension-kiisa halkan ay ku qoran type of file-ku nooca uu yahay tusaale ahaan hadalkaygu waa kan waa png magaciisuna waa background magaciisa soo koobiyeysaa halkan aad imaanaysaa halkan aad paste dhahaysaa kabacdi dabada maxaad ka raacinaysaa nooca uu ahaa fileka tape-ka uu ahaa png buu hadalkaygu ahaa png baan doonaa control s baan leeyahay dabeetana browserkaan ku noqonayaa refresh baan dhahayaa simple wuu soo gala hadda waxaad arkaysaa intan xagga right-ka markaad eegtid xagga intan midigta oo dhan iyo intan bidixda bilowgeeda way soo egyihiin sababtu saa u keenay u dhahayna waxa weeye sawirka markii la soo geliyay sawirka halkaas ku joogsamay kabacdi intana banaanaatay dabeetana intan ku soo celceliyay repeat bacanaha ku dhacay background-kii oo markii barigii oo dhan sawirka qaadi waayay mar labaad buu soo celiyay taasay uga saari kartaa halkan oo kale ayaad imaanaysaa dabeetana waxaad dhigi kartaa wax loo yaqaano background markaasaad isticmaali kartaa wax loo yaqaano horta background position horta aynu eegno property-ga inoogu xiga waxa weeye waa repeat yes marka waxaad dhahaysaa background repeat
marka haddaad rabti inaysan soo noqon no repeat baa daasa control s leh browserka ku noqon marka refresh leh soo maasid qaybtan oo dhan wuu qaawiyey macnaha no repeat ha soo celcelin weeye meesha inta uu qaado sawirkaygaasi ku jooji marka intaasuu kuu qaaday weeye sawirkaaga haddaad rabtid intana inuu dee soo galana halkan waxaad ka dhigaysaa repeat weliba repeatka qudheeda ayaa kala duwan mar waa x oo waa joog marna waa y ma x mar waa taxbanay oo chief marna waa y waa joog marka haddeer inaga joog uu inoo buuxaa laakiin weliba jooga in yar baa xan ka dhiman laakiin xagga aadka wax badan ka dhiman yahay waa chiefka marka haddeer waxaan dhahayaa repeat x weliba repeat x baan leenahay okay control s baan leeyahay refresh baan leeyahay smart wuu buuxiyey okay property inoogu xiga waxa weeye background repeat waynu aragnay background attachment waynu xiga background attachment horta wuxuu qabataa bari halkaas la aragno the background attachment property is used waxaa loo isticmaalaa to specify if the background image is fixed or scroll waxaa loo isticmaalaa backgroundkaadani ma mid marka hoos soo socdo saa u soconayaba oo macnaha hoos page marka saa loo soo wado la soconayaba mise waa mid inta sare ee muuqato un ku dhigan oo fixed ah oo inta kaliya ku dhigan inta muuqata laakiin haddii hoos soo socdo intan ka maqnaanaya sida highlight-ka aan saaray oo kale haddii hoos soo socdo background-ku uu tagaya haddii sidaa la dhahaan oo page-ka inta la taagan inta ugu horeysana macnaha background-ku uu joogaa haddaan laakiin hoos socdo macnaha wuu maqan yahay marka fixed iyo scroll saasa laga wadaa midna waa mid la jiidmayo oo page-ka oo dhan buuxinaya midna waa mid inta yar muuqato kaliya ku eg balaynu aragno si loo isticmaalo waxaad dahaysaa marka background attachment fixed baa inta badan la isticmaala fixed baad ka dhigaysaa ha taagnaado yuusan noqon wax soo soconaya okay fixed baad ka dhigaysaa sidaa ha u taagnaado macnaha wax xaggan hoose haddaan u socdo iyo macnaha dee haddeer waa one page kaliya laakiin waxaa laga yaabaa inuu marka qaar data badan ay ku jirto page-kaaga oo hoos loo wadayo haddeer hoos ma wadi karo marka background-ku ma raacaya mise bartaas ku taagnaanaya marka waxaan dhahayaa barta fixed iga dhig inta kaliya ha ahaado okay property-ga inoogu xiga waxa weeye waa background position ku aad buu muhiim u yahay waxaan ka hadlaysaa background position wuxuu leeyahay isagu 4 value buu leeyahay shan value aan dhaho shanta value waxaa ka mid ah center inaad bartanka dhigtid inaad top dhigtid xagga sare inaad dhigtid bottomka inaad dhigtid leftiga bidixda inaad dhigtid rightka inaad dhigtid midigta intaaba inaad dhigtid waa awood baad u leedahay haddeer haddaan dhaho waxaad dhigtaa right balan aragna suu noqdo background okay halkan repeat-ka aan dhaho no repeat aan dhaho soo celinayno control s aan dhaho aan browserka ku noqdo refresh aan dhaho hadda xagee buu dhigay right ku dhigay background-kayga dhan dhanka bidig buu dhigay sidoo kale waxaan dhigi karaa halkan right-ka aan idhi left ayaan dhigi karaa hadda xaggan ayuu soo raray bidixdu soo raray sidoo kale waxaan dhigi karaa inaan dhaho waxaad dhigtaa centerka centerka u dhigay xaggana in baa ka banaan xaggana in baa ka banaan marka top iyo bottom saas kala adeegsan kartaa marka background position-kuna waa boss-ka aad dhigaysid background-kaaga halkii baad dhigaysaa muuqaalkeena caawa intaas ayuu ku egyahay aad iyo aad baad mahadsantihiin fadlan channelka subscribe saar haddaan kusoo gudbiyey wax macluumaad ku anfacayana fadlan videoga like saar aad iyo aad baad mahadsantahay asalaamu calaykum